Minneapolis waxaan rabaa anoo very proud of idinku ah as Minnesotan as Minneapolis waxaan rabaa dagaalkaas iyo juhdigaas dawladda ay ku jirto waxa kale inta dhan anaga meelaan iska dhignay we will fight al-shabaab shaqa ka weyn ee jirtaas munaasabadan casho sharafta ah ee lagu soo dhaweynayay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dalkeena mudane xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga qabanqaabada xafladda soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay oo wasiirka horudhac u ahaa oo ku soo foolay dalka Mareykanka ayaa waxaa ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka socda safaaradda aan ku leenahay dalka Mareykanka ee magaalada madaxda Washington qaar ka mid ah mas'uuliyiinta laga soo doortay gobolka Minnesota iyo degmada sida gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cismaan ganacsato aqoon-yahano iyo saraakiishii xoogga dalka ee uu ka mid ahaa Generaal Maxamed Cismaan Qaadi iyo xubno kale aqoon-yahan Xaashi Shaafi oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota isla markaasna ka mid ah guddiga qabanqaabada soo xafladda soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo hormuudka jaaliyadda ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay wasiirka waxayna bogaadiyeen horumarka dawladda ay ku tillaabsatay iyo sida ay markas diyaar ugu yihiin taageerada dawladooda saan u sheegay caawa ma aha habeen hadal waa iska runtii soo dhaweyntaas iyo mahadnaq aan u mahadnaqaynay hawshii xooga badnayd ee inoo soo qabsoontay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay inay ila soo dhaweysaan gudoomiyaha galmudug gudoomiye maxamuud ducaale oo ah haddana gudoomiyaha jaaliyadaha maamul goboleedyada wasiir qiimo badan oo dawladda federaalka maanta ka yahay haddana uu hormood u yahay gobol xaaridda imaanshada madaxweynaha waxaan leenahay beene beene kusoo dhawow magaaladaadii jaaliyadaadii gacmo furan haddana isugu kala keenay xafladan quruxda badan caawa oo wajiyo badan leh ay ugu horeyso number 1 inaan soo dhaweyno wasiirkeena maxamuud cabdiraxmaan beene beene madaxweyne xasan sheekh maxamuud dee qof kasta oo Soomaali ah oo naga mid ah maanta hiilu uga baahan yahay maxay tahay dagaal baa lagu jiraa Soomaaliya waa arkaysiin maanta meeshay marayso al-shabaab annakaana la ka rabaa marka inaan isu raacino number aad u badan ayaa degan Minneapolis madaxweynahana inay la kulmaan dadku arkaan ay dareemaan wadaninimadu waxay tahay qarannimadu waxay tahay wax aad u qurux badan aad waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirkeena maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo asaga waftiga ka soo hormaray oo yiri dadkii hawshan juhdiga soo galiyay oo 3 wiig ka badan shaqeynayay aan la casheeyo marka waxay ku tusi kartaa shakhsi ahaan qofku yahay maxamuud cabdiraxmaan beene beene ku soo dhawow asxaabtaadii iyo magaaladaadii iyo meeshii maaragtay laga jeclaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada xafladda soo dhaweynta madaxweynaha mudane Axmed Maxamed Dhagacade oo loo mid leeyahay inay ka dhacdo xafladan 15 bishan xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyay wasiir xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene anigoo ku hadlaya afka guddiga qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dhamaantiin inkaga mahadceliyo ka soo qaybgalka cashada iyo soo dhaweynta wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya aniga kelmadaygu waa ku kooban yihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiir beene beene wasiir soo dhawow wasiir xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa guddiga qabanqaabada iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota uga mahadceliyay dadaalkooda hagar la'aanta ah ee ay uga qayb qaateen tiirarka dhaqaalaha ee dib u dhiska dalka taageeradooda hay'adaha dawladda iyo dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo taageero ka helaya dadka deegaanka isagoo jaaliyadda Soomaaliyeed ka codsaday inay dadaalkooda si laba jabaaraan sharaf ayay ii tahay inaan caawo kasoo qayb kala casuumadan cashadan soo dhaweyntan qiimaha leh waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinka mahadceliyo bahdii ka soo shaqeysay arintan cashada ah ee guddigii horeyna ugu shaqeynayay qabanqaabada iyo soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya imaanshihiisa gobolkan Minnesota intaan dhowr iyo 10 maalmood ama 20 maalmood ku dhawaadkii ka shaqeynayay caawana aniga ii overgareeyay waqti ku bixiyay inay cashadan qiimaha badan ay inoo suubiyaan aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinayaa sharafayna ii tahay inaan kasoo qayb galo ilaahayna ajir horta idinka siiyo hawshaas oo aad mas'uuliyad iska saarteen oo aadan adinkoo dhaqaale ka helaynin
volunteer iyo dadnimo iyo qiimo iyo milga xaggiina ka yimid aadan idinka mahadcelinaa insha allah madaxweyne sababta marka inta uu imaan doono horta dadkiisaan qiimaha leh inuu idiin engage gareeyo idiin warramo rabaa xaaladda guuda ka warqabtiin laakiin xaalad ka weji oo sidaan oo kale inuu idinku imaado idinku warramo fursad fiican ay noo tahay adinkana aad hadhow ku su'aali kartaan inta oo codkeeda maqli doontaan inay kasoo qayb galaan fursad weyn oo qiimo leh waaye dalkeena oo ogtihiin dagaalku ku jiro annaga waxaan rabnaa adoo meeshaan nabadda leh oo raaxada la joogtid inaan niyad ahaan dagaalkaas ku jirtid bis xataa inaan noo muujisid big support ay noo tahay kulanka wasiirka iyo guddiga qabanqaabada xafladda soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxay noqonaysaa madaxweynaha booqashadii saddexaad ee uu madaxweynuhu ku yimaado gobolka minnesota iyadoo madaxweynuhu ahmiyad gooniya siinayo qurbajoogta soomaaliyeed cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka